maalmahan iyo maalmo dhaweyd wax la sheegay ciidan ka goostay meesha sanaag barin dadku haddaanay mesela ana xogaal wahayn waxa laga yaabaa waxaan ciidan badan goosanaya maxay yihiin la yiraahdo haddii horta dadka inay ka dhaadhiciyo waxani waxay yihiin waxa gobolada ka qaramaysan ciidamo badan oo qaarkood 25 sano qaramaysnaayeen oo deegaankooda fadhiya wax hawlo oo ay qaranka u qabtaan aanay jirin hawlgal ma fuliyaan meeshooda wax kuma qabtaan hadana waxaanu siinaa mushaar inagoo eegana waxyaabo badan wali inta ay joogeen wax hawla waa hawlgalada ka socda wadanka waxba kama fulin حتى تيدور شو إنك وحنا في الخماية قبل ونهلكوا بينكم مسروفا مدوح يكون عادي واحد نقول لوارن بران الدجاج كوجي هيد إنه ترام بقوا مرة وحنا شايفين يجي يكوا بودلاند إنه يصير كده هي أو أنا يسوي رارن أي هيد مركا قلدي كلا بودلاند ما يكعب حداي سيدا أودد أنا قلنا أنا ورد كراين وأنا كنت النبيله إذا كان مرة عين بدي لكن وحرة واحد تجي سراكيشي وقامنسي وحا هالكا كم مقاطع مدة إنه ليش وجنب خيامون يخصعدين قرن كنا ما بعنا العق بلاش والله بحيو قف العق ثلاثين هي وإنه بحيل لو حلوسي إلا كوقبتها إذا ما ذاك لا جداه جوجا أو شقيان وأنا أوشقيان إذا ما ذاك لا مالها جوجانا لكن هذا واجب كيف فلين كراين إنه العقة تماه إنه سيج جوجانا ما والله صاير أنت أصلا بأنه كويجنا والله صاير كوا تجي كوا كلامه مو بهنا قرنكو إن سكتكان بوناسب وأنا كفر حسنا إن سكتكان هاي لو واحد قرنكو واحد قرش هاي إنه ولا فرديان مشيرو العق بلاشة وضد عشور تذكر اللي هو الرياء ويبلاش وقاتان أيان أيون بيقاتان واحد نقص النقد ينوفليان مجرو وهذا عين كاسو خلونا إنه كتجان ومركو هربا قضي عليه ده النقطة رمية اللقمة يصير كرو وعلى وين ما هتين يكون نقتدي taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland sareeya gaasnuux Ismaaciil Taali sidoo kale waxa uu ka hadlay Korneyl Caare oo ka tirsanaan jiray ciidamada militariga ee Soomaaliland oo sheegay inuu ka goostay kuna dhawaaqay jabhad la dagaalanta ciidamada isagoo taliyuhu sheegay in Korneyl Caare yahay dambiile qaran oo geystay dilal Caare waxa Korneyl ka tirsan ciidamada waana ogyihiin ciidamada way yaqaanaan in dib badan oo dhibaatooyin badan sanad ka geystay waxa halkan miiskan saraakiisha joogtaan baa ku xidhnaa isagoo afar nin loo haystay dilkood rag baa ololeeyo ninka la sidaaya leeyahay walikiiskiisi sidii buu yaalaa ee maxkamadda waxa jirta halka markuu tagayna uu muddo joogayna waa ka dhacay mushaarkii ciidanka ee dhexdooda fadhiistay haddana waa ka tagay Puntland dadka uu gacantiisa ku dilayna ee gobolkaasna ka tirada 10 qof kama yara qaar hadday ciidan tahay iyo hadday tahay shacab waxaan arkay dad uu doodaya sanaa kula kulmay ninkaas la iska daayay waa geesi goormu noqday in qaran ummadda islaamka xasuuqay inuu geesi noqdo in la qisaasaba ahayd si isagana dambiga Ilaahay uga dhaafo oo dadku laayay loo qisaasaba ahayd laakiin in loo qaato geesi anu waxaan u arkaa ana shakhsiyan inay tahay dambi uu doodayaana hadduu wax u tarayo dambiga uu sameeyay laga jaray inuu ogolaado laga jaro maxkamad la saaro laakiin iska socow dad baan laayay waxaan doonaan sameeyay ciidan baan laayay haddana iska soco anu waxaan arkayaa khalad qarankuna waxa weeye sharci buu leeyahay sharcigaayna kala haga qofkii dambi galay in maxkamad la saaro sharciga hadda oranaya marka waxaan leeyahay dadka uu doodaya Caare uu doodaya waa dambiil Caare